Assalaamu calaykum. Kusoo dhowow daawada warbixin kale oo ku saabsan shirqoolkii Suuriya. Warbixintan waxaa diyaariyay Cabdiraxmaan Mixille. Waxa ay ka hadlaysaa shirqoolka Suuriya ee wadamada reer galbeedka, aragtida kala duwan ee dalalka Carbeed ee ka qabaan dalka Suuriya iyo arrimo kale oo dhowr ah. Warbixintu waxay ku bilaabanaysaa sidan. Suuriya waa wadan ku yaala bariga dhexe gaar ahaan galbeedka Aasiya. Dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 11.53 milyan oo ruux. waxaana daraasadaasi la sameeyay 9 sano ka hor 2010kii. Wadankan waxa uu diris leeyahay ama uu jaar leeyahay wadamo badan sida dalka Urdun ama Jordan oo dhinaca koonfureed ah, dhinaca galbeed badda Mediterranean-ka iyo sidoo kale wadanka Lebanon ayaa halkaasi ka jira. Dhinaca waqooyi waxaa kaga beegan dalka Turkiga, dhinaca barina dalka Ciraaq, koonfur galbeedna waxaa kaga aadan dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay haysato. Suuriya waxa ay leedahay ilo dhaqaale oo xoogan kuwaas oo ah dalagga beeraha iyo sidoo kale ceelasha shidaalka, kuwaas oo ay ka soo hooyeen dhaqaale badan oo aad u ballaaran kuna filnaan kara wadanka oo dhan. Suuriya waxa ay ahayd malja iyo sidoo kale meel deegaan ah ee Falastiiniyada dhulkoodii xooga lagaga qaatay, isla markaana siisa Falastiiniyiinta baasaboorka Suuriya si ay meesha ay doonaan ay ugu tagaan. Haddaba waxa la isweydiin karaa maxay tahay aragtiyada Mareykanka iyo Yahuudda ee dalka Suuriya. Tani markii uu gacanta uu ku dhigay dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad xukunka wadanka Suuriyana uu qabtay sanadkii 2000, dowladda Mareykanka oo saaxiibo dhow ay yihiin Yahuudda waxay farta ay ku fiiqi jirtay inuu nidaamkaani ula shaqeeyo argagixisada ka howlgalaysay Falastiin iyo Lebanon ee kala ah Xamaas iyo Xisbullah oo ay inta badan ugu kala yeeri jireen sida inay yihiin kooxo argagixiso ah. Sidoo kale sanadihii 2003 iyo 2006 Suuriya waxa ay noqotay jidka ay maraan qolooyinka jihaadoonka ah ee aadaya wadanka Ciraaq, taasi oo markii dambe dowladda Suuriya gacan bir ay ku qabatay. Sanadkii 2006 ayaa Israa'iil isku dayday inay weerar ku qaado dhulka koonfurta Lebanon ee gacanta ay ku hayeen maleeshiyada Shiicada ee loo yaqaan Xisbullah, taas oo ay ugu guuldareysteen weerarkii ay ku soo qaadeen. Dagaalkaasi kadib waxaa cambaareen hawada ah loo marsiiyay dowladda Suuriya, iyadoo lagu sheegay in hub aad u badan oo qayrul caadi ah ay siisay jabhadda Xisbullah. Sanadkii 2009 ayaa markale Israa'iil isku dayday inay qabsato marinka Gaza, taas oo markale si fool xun ah ugu guuldareysatay, waxaana iska cad in jabhadaha ku xeeran Israa'iil ay xoogeysteen isla markaana ay gaareen heer ay iska celiyaan. waxaa meeshaasi ka soo baxday qaacidada cusub ee loo maqoonin karay ciidankii ku faani jiray inay weligiis aan la jebin karin. sidoo kale ciidankii Israa'iil guuldarro kalama uusan kulmin weligiis Carab oo ma aanay jibin marka laga reebo labadan guuldarro ee isku xigay oo aanay Israa'iil ka gaarin ujeedooyinkeedii dagaalka ay kala ahayd, taasi oo amakaag iyo afkalaqaad ku noqotay wadamadii dhisay Yahuudda oo ay qayb ka tahay Mareykanka iyo sidoo kale dalalka Yurubta galbeed. isla sanadkaasi waxaa soo ifbaxday inuu xoogeystay xiriirkii u dhaxeeyay afarta qolo ee u midoobay ee kala ahaa Iiraan, Suuriya, Xisbullah iyo Xamaas. Iiraan waxay ka ciyaartay door aad u muhiim ah inay xoogeystaan jabhadaha dagaalka baani oo kala dhaxeeyay Israa'iil sida Xamaas iyo sidoo kale Xisbullah, kuwaas oo hanti iyo hubba ay ku maalgelin jiray isla markaana Iiraan ka heli jiray. waxaa la sheegaa in Suuriya iyada doorkeeda ay qayb ka ahayd taasi oo aanu dhicin ama se kaba sarreeyay dowladda Iiraan doorkii ay ku lahayd labada xisbi, waayo Suuriya waxay martigelisay madaxda Xamaas iyo qaar ka mid ah Xisbullah oo deganaa dalkaasi Siiriya. sidoo kale waxay ahayd meesha isku xirtay jabhadaha ee hubka iyo sidoo kale hantidaba loo dhigi jiray. Yahuudda iyo Mareykanka fikirkoodii waxa uu dul wareegayay sidii meesha looga saari lahaa saddexda xagal ee halista ahaa, waxaana ay arkeen in ay fududahay inay qalqal ay gelin karaan lana weeqi karo awoodda ciidan ee ay leedahay wadanka Suuriya. sidaas aaweed Yahuudda iyo Mareykanka waxay hindiseen qorshe lagaga soo saarayo Suuriya wadanka Lebanon oo amaankiisa ilaalintiisa ay hayn jireen muddo dhan 29 sano, inkastoo ay reer galbeedka u arkayeen kuwa xoog ku haysta. si haddaba looga saaro ciidamadaasi meesha waxaa qarax lagu qaarajiyay oo lagu dilay ra'iisul wasaarihii dalkaasi Rafiiq al-Hariri oo ka mid ahaa raggii ugu cadcaddaa ee ka qayb qaatay dib u heshiisiinta wadanka Lebanon sanadka markuu ahaa 2005. muddo dheer kadib qaramada midoobay ayaa Suuriya waxay ku qasabtay inay isaga baxdo wadanka Lebanon, isla markaana waxaa ku xigay sanadkaasi oo ah sanadkii 2006 oo Israa'iil waxa weerar ku qaaday koonfurta dalka Lebanon. halkaas waxaad ka fahmi kartaa inay Israa'iil xiriir la lahayd ka bixitaankii ciidamada Suuriya, waayo haddii ay soo weeraraan iyaga oo Suuriya ku jira waxa iska cad inuu isku dhici lahaa labada ciidan. sanadkii 2011 waxaa si fudud u dhashay waxa loogu yeeray gugii Carabta ama Rabiicul Carab ama Arab Spring, waxaana xilligaasi isbedelay waxyaabo badan oo wadamada Carabta ay ku roonaan jireen
sida wadamada liibiya, yeman, suuriya iyo masar. waxaa kasoo yeeray wadamadaasi oo idil inay banaanbaxyo badan ay sameeyeen dadkooda iyagoo ku faraxsanaa waxyaabihii dhacaya dadkooda. liibiya kadaafi meesha ayuu ka baxay, balse waxaa loo kala baxay maleeshiyaad iyagu isu maqan oo isdagaalaya iyo qabiilo. yemanna cali cabdalla saalax isna meesha kuma uusan sii habsaamin, waa uu ka baxay, laakiin wadankii waxaa qabsaday xuutiyiinta oo weli gacanta ku haya. kadib markii maxamed mursi uu ku guulaystay doorasho xor iyo xalaal ahayd oo la afgambiyey oo meesha laga saaray, suuriya waxaa iyana sidoo kaleento ka bilaabmay mudaaharaadyo noocaasi oo kale ah, balse waxay ahaayeen kuwo ka foolxun. muddo markii ay socotay waxa uu isu bedelay dagaal sida liibiya iyo yeman oo kale ilaa ay haataana taagan. haddaba su-aashu waxay tahay, haddaynu si guud aynu mar u wada fahanno waaqiciga ku xiran suuriya, dowladaha carabta aragtidooda maxay ahayd ee iyaguna ay boqortooye ama dhaxaltooyaba ku haysta xukunka wadamadooda? aan eegna aragtidii carabta. carabtu waxay u arkaysay in bashaar al asad oo meesha ka baxa ay u fiican tahay maslaxadda carabta, maadaama uu bashaar al asad uu yahay nin shiici calawi ah oo xiriir dhow la lahaa waddanka iiraan oo ay carabta cadaawad xumo ay kala dhexayso. dhinaca kale marka aynu eegno qadiyadaasi, waxaa iska muuqata in iiraan iyo suuriya ay taageereen xulafada ruushka iyo china, dhinaca kalena wadamada carabtana ay taageerayeen maraykanka iyo xulafadiisa. taasi waxay keentay cadaawad ba-an inay u qaadaan bashaar al asad. si haddaba taasi loo sharciyeeyo, waxaa la amray culimmada inay u fadwoodaan in waxa ka socda waddanka suuriya uu yahay jihaad lana caawin karo. culimmadii uma aysan fiirsana waxa ay ku dhawaaqeen fadwo ay ugu yeedheen in waddanka daalim kaafirka uu haysto ay tahay in lala dagaalamo oo lala jihaado. su-aalihii markaasi soo ifbaxay waxaa ka mid ahaa: 1. bashaar al asad wuxuu waddanka haystaa in ka badan dhowr iyo 10 sannadood. intaas oo dhan haddii uu gaal yahayna maxaa lagu adeecay? waxaa kaloo la isweydiiyey, haddii meesha waxa ka socdaa uu jihaad yahay, waayo ay culimmadu iyagu ay ugu horreyn waayeen oo ay uga qayb qaadan waayeen? ilan waa jihaade. jihaadka qofka ku dhintaana waa shahiid. shahiidkuna waa darajo ka mid a darajooyinka ugu sarreeya ee qofka muslimka ah uu gaadho. su-aalahaas ayaa ka mid ahaa kuwii la isweydiiyey. su-aasha saddexaad ee la isweydiiyey waxay ahayd, haddiiba aan aqbalno inuu jihaad ahaa qofka muslimka ahi, firqadee buu ku biirayaa? haddaba maxay tahay aragtida reer galbeedka? reer galbeedku markii hore waxa ay taageersanaayeen in meesha laga saara dowladdan xoogga leh ee gorgortanka ku haysa Israa'iil oo xoogga ku haysa dhulka Falastiiniyiinta. balse nasiib darro waxaa kaga soo baxday in meesha uu soo galay ruushka oo baryahanba la'aa fursad uu ku muujiyo awooddiisa uu kula tartami karo dowladaha naato ku bahoobay, isaga oo xulafo la ah waddanka shiinaha, iiraan iyo sidoo kale dowladaha itaalka daran ee suuriya. taasi wax weyn waxa ay ka badashay habkii dagaalka iyo sidoo kale awooddii suuriya. dowladda ruushka oo ah dowlad lagu yaqaana inay gumaad ba-an oo ka daranka maraykanka iyo xulafadiisa ay u geystaan dadka muslimiinta ah ee xaqraadiska ah ee shiishaan ama jejniya, oo keliya waxay u geysatay xasuuq aad u badan oo aan malaysan karaynin. sidaasi si lamid a waxaa xasuuq aan la isula harin uu ka socdaa dalka Syria. waxaa lagu xasuuqaa shacabka iyo caruurta iyo dumarka. weerarada ugu daranna waxa ay geystaan oo ay ka dhacaan magaalooyinka Xalab iyo Idlib. aragti ahaan reer galbeedka, gaar ahaan maraykanka oo aaminsan 26 sannadood kadib burburkii Sofiyeed inuu dunida u taliyo, wuxuu aad uga warwarsan yahay awoodda ruushka ee sii tarmaysa marba marka ka dambaysa. taasi oo hadda u muuqata maraykanka in lagula tartamayo dhanka awoodda iyo dhaqaalaha ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale Aasiya. dowladaha raashka iyo maraykanka ee iska arkay biyaha hoostooda colaad hoosana ay ka dhaxayso ilaa bilowgii qarnigii dhammaaday ee 20aad iskuna haya hoggaanka iyo maamulka dunida ayaa laga cabsi qabaa inay si cad isugu soo baxaan oo ay isku dhacaan, maadaama mucaaradka ay taageersan yihiin maraykanka halka ruushka uu dowladda Suuriya taageersan yahay. haddaba waxaa iska cad Suuriya inay noqotay garoon ama stadium lagu ciyaarayo oo ay laba kooxood oo mucaarad iyo dowladaba ay ciyaarayaan, iyaga oo taageero ka helaya wadamada kale ah ruushka iyo xulafadiisa sida Iiraan iyo China, sidoo kalena maraykanka iyo xulafadiisa sida NATO iyo carabta kale ee dhadhan raaca ah. haddaba maxay tahay faa'iidooyinka ugu jira reer Yurub iyo Israa'iil ee aan muuqan arrintan? marka koowaad waxaa baraare iyo sidoo kale iib aan la soo koobi karin u hoyatay Israa'iil, kuwaas oo hadda haysa fursad ballaaran oo ay ku wada qabsan karaan dhulka Falastiiniyiinta, maadaama ay meesha ay kasii baxaysa ciddii taageersaneed maleeshiyaadka Falastiiniyiinta. sidoo kalena waxaa hoos u dhacday awooddii uu lahaa Xisbullah oo ciidankiisi badh uu geeyo waddanka Suuriya si uu ugu taageero dowladda Syria. dowladaha reer galbeedku waxay la baraareen sidoo kale faa'iidada xoogga dhallinyarada waxbartay ee ka qaxay waddanka Suuriya, maadaama dagaalka Suuriya ka hor uu Yurub uu ka jiray yaraanta xoogagga shaqaale ee ay u baahan yihiin warshadaha wax soo saarka ee Yurub.
faa'iidadaasi kadib waxay ku qabaan oo kale faa'iido kale maadaama carabta badankooda aanay samaysan hub ay ku dagaalamaan sidaas awgeed warshadaha waaweyn ee hubka soo saara ayaa sidoo kale lacag iyo dakhli fiican uu ugu hoyanayaa wadamadooda dhinaca kale haddii aynu eegno ceelasha shidaalka ee Suuriya waxaa marar badan gacanta ay u galayeen xarakada Daacish ama ISIS oo shidaalka suuqa madow ugu iibgeysay kaas oo hoos u riday sicirka shidaalka ee caalamka haddaba maxay tahay saadaasha mustaqbalka ee Syria haddii la eego oo si kooban loo saadaaliyo waxa uu ku dhici kara mustaqbalka dalka Suuriya waxaa ka mid ah waxaa dhici karta in Bashaar al-Assad iyo dowladdiisa aakhirkii ee meesha ay ka baxdo isla markaana xukunka ay isku dilaan jabhadaha jihaadoonka ah ee inta badan soo dagaalamayay taasi waxay keeni kartaa in wadanka uu galo dagaallo cusub oo hor leh kaas oo ku dhisan hab qabiil iyo sidoo kale hab kooxeed taasi waxay sababi kartaa inay qaybsadaan wadanka siday xustay jariiradda wadanka Mareykanka ee New York Times warbixintii ku saabsan shirqoolkii dalka Suuriya waa nagintaa waxaan filayaa in xog badan oo dalka Suuriya ku saabsan aad maanta aad ogaatay waxaa warbixintan diyaariyay Cabdiraxmaan Mixille waan kaga mahadcelinayaa daawashada iyo la socoshada muuqaalka xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo